daawadayaal maanta Shiinaha iyo Nepal xadka u dhexeeya waxaa ka dhacay mucjiso runtii aad u weyn ayaa ka dhacday. Hal mar ayaa waxaa soo baxay daadad ama floods sida u taqaaniin. Daadadkaas waxay hal mar qaadeen dadkii ku noolaa gobolka Sichuan dhanka muxuu ahay koonfur Shiinaha iyo Nepal dhexdooda. Hal mar ayaa dhul dhan oo buuraa oo guryo ay ka dhisnaayeen dadkii degganaay ayaa hal mar daadadkii qaadeen. Hal qofna kama noolo, dhammaantood waa dhinteen. Waxaa ku dhuftay dhul gariir cabirkiisu yahay 4.4. dhibaatadan hadda la soo sheegayo ee ka jirto muxuu ahay xuduudda Shiinaha iyo Nepal waxaa sababay ayaa la leeyahay baraf qaboobay, ice avalanche waxay dhahaan. baraf qabow oo isku dhagay ayaa wuxuu ku dhacay webiga. markuu webiga ku dhacay wuxuu sababay inuu dhalaalo, kadibna biyo xad dhaaf ah ayuu sameeyey. biyihii ayaa waxay soo sameeyeen marka inay soo baxaan oo soo bulqamaan, kadibna xadka labada dal meel buur ah oo ay dad badan degganaayeen ayaa ku soo rogmadeen, ayaa daadadkii ku soo rogmadeen. daadadkiina waxay qaadeen dadkii oo halkaas degganaay. dhammaantoodna runtii waxay noqdeen kuwa dhintay iyo kuwa la la'yahay. ilaa tirada 384 ayaa hadda la la'yahay oo qolada rescue operationska oo helicopterada kacay dhanka Tibet. marka Shiinaha marka weli dhibaatada halkaas ka taagan runtii aad ay u badan tahay daawadayaal. waa musiibo weyn ayaa dhacday halkaas ka dhacday. marka ice avalanche-gan wuxuu ka dhici karaa hadda Soomaaliya maadaama El Niño hadda ay soo socoto. waa suurtagal dad weather forecasting ka sameeya ama meteorologists-yaalahan arrintan aan mataqaanaa hordhigay waxayna kuu sheegayaan ama analysis-ka ay ku siinayaan waxay tahay Soomaaliya inay ka dhici karto saan oo kale. marka intee ka imaanaya Soomaaliya dhul ma ahan hadda oo baraf ka da'o, laakiin biyaha ayaa waxay sameyn karaan dhanka xeebaha inay qabow oo mataqaan condensed ah oo sameeyo, kadibna ice rock oo sameysmo avalanche waxa la dhaho oo baraf dhagax isku dhadhagan ah isaga marka uu sameeyo qarax hadhow oo sameeyo oo webiga ku darsoomo fatahaado badanna ay dhacaan. waa suurtagal waayahan hadda Soomaaliya cimilada ayada xataa aaday u soo qabowaahay oo qabow ayaa bilowdo aragteen. marka maanta Shiinaha iyo Nepal xadka waxaa ka taagan mashaqadaas oo hal mar daadad soo rogmada ayaa dadkii buuraha degganaay oo dhan ay hal mar qaadeen. marka waa mucjiso runtii oo rabbaani ah oo minallaahi ah. ilaa haddana ay la yaaban yihiin ayaga. lama yaqaano sida loo xakameeyo. qolyaha operationska ama rescue operationska waxay isku dayayaan inay dadka maqan ee hadda la'yahay ku raadiyaan diyaaradaha helicopters. dhulka muxuu ahay eeyaha waxbaare ee joogane waxay isku dayayaan inay dadka dhulka hoostiisa galay ay wax nool haddii jiraan soo helaan. marka xaaladdu aaday u cakiran tahay maanta Shiinaha iyo Nepal xadkooda. meeshan hadda aan ka hadlayo gobolkan waxaa la yidhahdaa Sichuan ayaa la yidhahdaa. 2011 ayaan mar tagay anoo Thailand ka baxay ayaan tagay. waa meel qabow oo dhul buuraley ah waaye. maanta mashaqaa ka taagan daawadayaal. runshaag subscribe gareeya fiidiyoogana waaba kanaa dabcan halkaas aad uga jeedaan daadadkii oo qaadayo oo washab ku sameynayo dadkii buuraha degganaay. marka maxaa sababay daadadkan? waxaa sababay ice rock avalanche waxay dhahaan. baraf dhagaxoobay ayaa sababay oo markii dambe dib inta u dhalaala u qarxay biyihii biyo xad dhaaf keenay oo daad xad dhaaf sababay.